شيخ محمد شاكر oo xasan sheekh maxamuud iyo tiimkiisii caloosha gooyay wariyada wayna waalayaan magaalada muqdisho socodkii oo ka soo qaaday ayuu hubiyo ku sii maraya wuxuuna doonayaa inuu sida inta gaalka ay u tago oo haddana sida uga soo gadoomo macnaha xuja u xiran ah anigu magaalada muqdisho ayaan ka soo dhaqaaqay gaalka ayaan tagay meel kasta oo tago dhulka nuuxsanaya degmo kasta oo tago ka ugu yar iyo ka ugu weyn baa u soo banaan baxaya dadka qalbiyadooda iyo qaluubtooda ayuu sida u haystaa cadayna degmooyinkii iyo tuulooyinkii oo tagay muuqaalada laga soo duubay Sheekh Shaakir qof kasta oo Soomaaliyeed qalbigiisa uu ku nool yahay inta muraafiqiinta anigu sheegi maayo laakiin qof kale oo Soomaaliyeed uu diidi kara ninka Sheekh Shaakir ma jiro hadii xasan Sheekh Maxamuud maanta meelaha ninka oo maro uma malaynayo 100 qof inay soo baxaan buux iyo lacag la baxsho iyo igu sawir iyo waxa ma yaqaanaan nimankan ma aragteen wax alla waxay nimankaas shabaabka ku sameeyeen oo ceelbuurta dawladda u taaglaada ay ku sameeyeen ayagoo duubaya ma aragteen inta mujaahidiin uga dhimatay qiyaas kartaa adigu shudbadii ay la fogaatay aan ku laabto Sheekh Maxamed Shaakir hada siyaaradii huusho u socda halka uu huusho ka soo galaya siyaaradii soo galaya qodobka u xirana waxay tahay doorashada galmudug laga qabanayo hadii aniga si sax ah iga guuleysto wala iga guuleysto laakiin aniga hadii la iga hor yimaado waa dhabcinaya way hada sida saxda way imka xasan Sheekh Maxamuud doorashada galmudug ay ka wadaan aduu ma doorashada u taqaana hebel waa wasiir ana sii og hebel waa xildhibaan ana sii og madaxweynaha ana sii og nimankan wuxuu adu ama sii ogtaa doorashada saxda ah cadaaladda taa weeye Sheekh Shaakir iyo xisbigiisa ama sii ogtaa xildhibaanka u soo baxaya wasiirka u soo baxaya madaxweynaha u soo baxaya golaha deegaanka u soo baxaya ama sii ogtaa doorashada saxda ah la sheegay cadaaladda midda noocaas weeye midda hamiinadan gurceel iyo dhuusam reebka dhacaysay oo codadka la kala gadanayo oo shalay codka uu marayay $50 marayay qofkii cod haya xildhibaankii baan sii ognahay gudoomiyaalka degmooyinka sii ognahay gudoomiyaalka iyo xildhibaanada u tartamaya xisbiga tawfiiq gambar gaaban ku fadhiyaan waxay og yihiin koolsoori ku qabaan kuwaan codadka ay heleen ay iibsadeen laba jibarkid ayagoon iibsanin helayaan nimankan lacag ma bixiyaan dulmi ma yaqaanaan kitaabkooda la kala baxaya hadda wacdo tiraahdo war igu sawirta ma barati waxa lagu leeyahay adar waa dambi gudoomiye gurceel oo mar labaad soo baxay waxa ka daba sharaxan gudoomiye kale ka daba sharaxan waxa la yiri 1300 meel lagu yiri mise 1200 cod helay gudoomiyaha ka daba sharaxan ninka la yiraahdo magaciisa waa iloobe in hebel garuun meesha kan kun ka helay 10,000 heli doona halka ku xariiqa deegaanada galmudugna kulligood waa sun wal jamaa